abaaro sagaalkii fiidnimo ee xalay ayay ahayd markii rasaas aad u xoogan laga maqlay bartamaha magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal taasi oo weerar lagu qaaday baqaarka ugu weyn magaalada Boorama ee lagu magacaabo Amir General Training Company. weerarkan ayaa waxa soo qaaday dabley aan haybtooda la aqoon ilaa iyo hadda. isla waqtigaasi dableydaasi waxa ay weerar ku qaadeen isla markaana ay bartilmaameedsadeen qaybta sarifka lacagaha ee baqaarka iyaga oo goobtaasi la isku weedaarsaday rasaas teel ah taasi oo uu dhaawac ka soo gaadhay tiro 4 ruuxa sida ay wararkani u xaqiijiyeen maamulaha isbitaalka guud ee magaalada Boorama Foosiya Muuse Xuseen. inuu soo gaaray abaartobankii meelaha كل ده هوش والوقفين شغالين وهيك بهاين كل والود مستري المسيب وخلصها اللي قاعدين يستاك خلصها اللي ما حبتي ما مقلي وحكوا لي حبيت شو دكتور وحيقول دكتور ما تحتاجني marka kule rasmi uu joogay hawsha uu qabtay waxa loo xaqaro inuu nagu yimid hay'adda mijirto dhanka kale isla waxa ka hadlay weerarkaasi iyo dhaawacyada dadkaasi soo gaadhay agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka Awdal Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed aye waxaana uu yiri waxaan ma jiro wax kale oo xoog hayana ma jirto kaliyaani waxa soo gaaray 4 qof oo dhaawac ah 4 qof labo saddex qof aad buu fududiyay midna waa iska dhaxdhaxaad oo kulay laba booliis ku matay jirisay waa inta ka badan ma jiro inta waxay xaqtiyaan oo macna lahayn وانا ما تقانا waxaan amareyska oo baxay guriga geestooda iyaguna waxa ka hadlay weerarkaasi xalay ka dhacay magaalada Boorama dadkii iyaga laftirkooda ku dhaawacmay weerarkaasi waxaanay ka warbixiyeen ayaa waxa dhacday maxaa inay inuu faasas nafsiin hada meherada ka dhigay dhismaha musaacad ku dhigay ay marka xabad khabaraan xabadii markay dhacday waan yaacno meherada kooshin ee carwada ayaan galay kadibna saasa dadkii oo dhan ay ku wada galeen meeshii beerkan loo wada jiifay markay yaraatay ayaan soo kacnay markaas markaa dhiigeen gacanta haray markay rasaas ku dhacdo baas qabto ka dhaxla waa ka shaqeey laakiin marka saacada waxba ka sarfeen kama waran ka rasaas ay ku dhacdo mooyaan kama waran halkan xidid ka rasaas ay ku dhacdo oo kamida dadkii ku dhaawacmay rasaastii ka dhacday xalay magaalada Boorama taasoo laga heshay sarifla weyn oo ku yaala magaalada Boorama bartankeeda oo naagaray inta la ilaa soobeena iyo cid maanta aan maami karno markaan wax ka soo sarifteen ka soo baxay waxa sida u soo dhacay wadadii ay xabad ugu dhacay gabagabadii waxa weerarkaasi ka dhacay xalay magaalada Boorama ka hadlay duqa degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydane wax walba oo iska dhacaan caalamka iska dhacaan maalin kasta qodobada ugu nabadgelyada badan laba oo ka dhaca waxay dambiyeed iska dhacaan maalin kasta dambiyeed laakiin sida loo buunbuuninayo maaha wax weyn ma aha inay deeqolo iska budhacdo maalin kasta dib way dhacdaa si ibtidaaciisa ma taasahay wax balaaya nabadgelyada degmada waa taam aad iyo aad binu wanaagsan tahay halkan xalay dhacayna dhibaatooyinka maalin kasta dhacay daruuriyaadka ka mid ahaa wax weyn oo sida loo buumuunay maahay hawshiisa iyo baadhistiisuna way socotaa hay'adaha nabadgelyada ayaa gacanta ku haya kana hordhici mayna baadhistooda ayaan sugaynaa intay baadhis dhaba ka soo saarayaan isku soo wada duubo weerarkan ayaanan ahayn kii ugu horeeyay ee lagu soo qaado gudaha magaalada Boorama balse weerarkani ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee lagu bartilmaameedsado rug ganacsi oo ay leeyihiin shakhsiyaad gaar ah ilaa ay haatan waxa lagu raad jooga isla markaana ay baaritaan ku wadaan ciidanka boolisku cidii ka dambeysay weerarkii xalay ka dhacay gudaha magaalada Boorama waa dhexkadii telefishinka caalamiga Somali Cable magaalada Boorama